السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب السود وهذا أصحابته وحين سعودي عشرة دني تحنها وين فيها حليني برشة حساب يونت كيسي تريجونومتري هذا واحد نسلا فيرين دونا هذا إلهي قدره ميد كلو كم ده عشرة ومهم سن تريجونومتري عوان كيسنا واحد لياسة مش كاغا موقتا أكل لينكث يعني وما حي إنه نسوي اللي كرنو أي نحسابين كرنو أكل لينكث إنه نحسابين كرنو نوع دونا هذا إنه نحسابين كرنو هذا مركز واحد نسلا فيرين دونا هرت أكل لينكث كمحوية يعني definition كيسو أكل لينكث definition كيسو نهاية تاعي هذا ما انتهى أكل لينكث أنا كهلن وحرام ركوات إنه نحسوسين جيومتري وحير أي نسلا فيرينه تصالح جيومتري مركز إنسان وصورنا الشيء كان واحد اللي مركز إنسان وصورنا waxaynu isla fiirin doonaa dhowr waxyaalood terminology baan isla fiirin doonaa terminology-ga marka waxa weeyaan fiiri halkaasi waxa la yiraahdaa waa centerkii waxa weeyaan circle-ka ama goobada line-kaas isku xiraaya intuu saa u soo dhaxmaro oo centerka soo dhaxmaro line-kaasi waxa weeyaan waxa la dhahaa sida aynu garanayno diameter baa la yiraahdaa diameter line ka marka waxa la yiraahdaa diameter sidoo kale waxa jira line kale center fiiri diameter ku waa maxay waa from circumference-ga ilaa circumference-ga isagoo dhex maraya center-ka line kale jira wuxuu ka bilowmaa center-ka waxa uu tagaa circumference-gu tagaa line kana waxa weeyaan sida aan xogta ku haysano waxa la yiraahdaa radius baa la yiraahdaa radius hada radius ku waa maxay waa line kaasoo waxa uu ka bilaabanayaa waxa weeye centerka ilaa waxa uu tagayaa meeshaas halka waxa inooga dhalanayaa diameter-ku in uu yahay laba radius oo la isku daray fiiri intaasna waa radius intaana waa radius halkaana hadhow waxa inooga soo bixi doonta in diameter-ka lagu helo laba oo lagu dhuftay radius oo hadhow aan xisaab isticmaali doono sidoo kale waxa jira line kale jiraahda centerka isagoo aanan marin halkaas uu ka soo bilaabanaya ilaa halkaas buu soconaya laba circumference buu u dhaxeeyaa line kaasina ma ahan mid maraya centerka kana waxa la yiraahdaa sidaynu aqoonta u haysano code baa la yiraahdaa kana maxaa la yiraahdaa code hadaba hadhow code hadaan noqosho inta lagu jiro khaasatan geometriga circle geometriga code maxaa la yiraahdaa waa line waxa uu dhex maraya yani wuxuu ka soo bilaabanaya circumference ilaa circumference isagoo aanan dibadana u bixi maayo centerna mari maayo waxa kale oo jira mid kale oo isna sidaas oo kala ah isla limit isku dabeecad waxa ay yihiin isku qaab waxa ay yihiin code-ka oo code-ku waa maxay wuxuu ka soo bilaabanaya circumference-ga ilaa waxa uu talayaa circumference-ga laakiin kan dibadda wuu sii baxaya ilaa kan dibadda uu sii baxaya halka kii hore dibadda uusan u baxayn ka dibadda u baxayana waxa la yiraahdaa secant baa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa secant baa la yiraahdaa kana waxa la yiraahdaa secant baa la yiraahdaa mid kale jira oo isaguna saddexaad oo jira kana waxa la yiraahdaa meesha radius-ka ama gacankeena ah buu wuxuu ku samaysmanaya saas ugu samaysmanaya radius-keena buu sida ugu samaysmanaya يعني دبدو مرايا كاس كان واحد اللي يراهدا تانجنت بالي يراهدا تانجنت هذا بصدح لاس كو لابو صدح افر شنتا لين واحد اللي يراهدو باجيرا شنتا لين محيين كو waxaan ku waa diameter centerku maraaya laba circumference isku xiraaya radius-ka ka yar waa centerka ilaa circumference laba circumference mid dhex maraaya oo aanan dibadda u baxayn oo aanan centerka marin code baa la yiraahdaa mid dibadda u baxaya code-ka haduu dibadda u baxna waxa la yiraahdaa secant baa la yiraahdaa tangent-guna waa maxay wuxuu ku qotomaa oo perpendicular ku yahay wax maxay radius ku yahay hadaba inta markaynu ka nimaado sidoo kale waxaan rabaa fiiri circle-keygii marka circle aan sawiranayaa circle-kaas aan sawirtay isagana waxaan rabaa terminology kale inaynu isla fahanno waxaan u sameeyay laba waxyaalood baan u sameeyay fiiri centerkayga waa ka radius baan sameeyay haddana radius baan sameeyay
laba radius inta u dhaxaysa halkaas ilaa intaas laba radius inta u dhaxaysa baa waxa la yiraahdaa arc length baa la yiraahdaa marka maxaa la yiraahdaa arc length kuna waa maxay waa masaafada distance-ga u dhaxaysa laba section baa u dhaxaysa radius daa sawidho inta labada radius u dhaxaysa baa la yiraahdaa arc baa la yiraahdaa arc intaas la yiraahdaa arc length kuna waa maxay waa intaas oo dhan cabirkeeda inaan soo saarno baynu baranayna maanta sidoo kale arc labu noqon doonaa minor iyo major tusaale ahaan oo kale intaas waxa la oranayaa waa minor waa ka yaraa kan weyna ee oo gadaal marayana isagana waxa la yiraahdaa major baa la yiraahdaa haddaba ciwaankeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa arc length kaasi sida aan u soo xisaabin lahayn ama ahaato minor ama ahaato major ku doonaha ahaadee in aynu xisaabin karno arc length keena inaynu soo xisaabin doono minor ha noqdo ama major ha noqdo ku doona ha noqde inaynu soo xisaabin karno ayaynu ku baranaynaa haddaba inta markaynu isla ogaanay terminology-gaasi isla ogaanay waxaan rabaa marka inaynu soo laabano keena meesha inoogu qoran keena waxa uu leeyahay arc length waa maxay wuxuu ku yiri arc length is a distance waa masaafo between waxa u dhaxaysa 2 point 2 point ba u dhaxaysa fiiri 2 point ba u dhaxaynaysa haye along a section kuwaasoo wax leeyahay waxa ay leeyihiin laba section oo maxaa fiiri radius 1 radius dhan oo curved waliba ah oo xoodan haddaba arc length kaasi laba qaacido buu leeyahay labada qaacido waxa weeyaan kan koowaad waxa weeyaan degree hadii aad haysato qaacida mid aad ku soo helayso hadii aad xagasha lagu siin doono halka hadhow marka fiiri circle-kayga waa ka radius kaasaan sawiray labada radius inta u dhaxaysa ma rabaa masaafadeeda ama distance-geeda inaan soo saaro haddaba xagasha leeysiye hadii ay degree tahay waxaan isticmaali doonaa il waxay la macno tahay theta oo loo qaybiyay 360 oo lagu dhuftay 2/r baan isticmaali doonaa waa koorma hadii leeysiyo degree hadii radian leeysiyan waxaan isticmaali doonaa s meeshii l isticmaali maayo s baan isticmaali doonaa r oo lagu dhuftay theta ayaan isticmaali doonaa fiiri marka halkaasi meeshaasi maanta waxa la igu qoray tusaale waxa la igu qoray tusaale 60 degree baa la igu qoray maadaama halka aniga degree leeysiiyay length kaas markii aan rabo inaan soo xisaabiyo oo aan degree haysto waxaan isticmaalayaa theta oo loo qaybiyay 360 oo lagu dhuftay 2/r hadii laakiin si aan leeysiin lahayn hadii sidoo kale aan leeysiin lahayn oo la oran lahaa 3/by amal hadii la oran lahaa maadaama wax calaamad degree aan la igu sheegin radian baa haysta qaacidana isticmaalaha s waxay la macnatay r theta oo lagu dhuftay isticmaalaha sidoo kale waxaan rabaa in aad ila sii ogaataan hadii halka 60 la isiiyo xagasha in la soo bixi karo xagashaasi wax la yiraahdaa hore wax u taqaanay circle-ku inuu waro 360 halkaasi marka wax la yiraahdaa 300 oo degree bay noqonaysaa marka kana waa la soo bixi karaa hadhowna labada markii aan isku daro line-kaas oo minor iyo major-ka hadii aan isku daro waxa rabaa in ay la kaato circumference-ga oo ah 2/r in ay la kaato hadii hadda inta 60 aan qaato 60 halka hadda aan dhigto halkana 300 bay noqonaysaa tusaale aan qaato 2 cm oo radius hadaan qaato hadii inta kan gaarkiisa aanu xisaabiyo ko kana si gaarkiisa aanu xisaabiyo labada hadii aan isku daro kadibna aan qaacidadan isticmaalo labadoodaasi waxa ii soo baxaysa isku jawaab ay soo bixi doonto hadaba kaliya waxaan rabaa example-kan ku arki doonaa hadii ina loo diro arc length degree na la siiyo qaacidadan isticmaalna theta oo loo qaybiyay 360 hadii laakiin inta radian na la siiyo waxaan isticmaalaynaa r oo loo qaybiyay theta ayaan isticmaali doonaa labadabana isku jawaab waa inay soo baxdaa sidoo kale taa markii aan xisaabiyo labadooda minorka iyo majorka markii aan isku daro waa inay ii leekaataa s2/r waa inay ii leekaataa example-kan ku fiirin doonaa marka example-kan aynu fiirino marka fiiri waxa lagu yiraahday a sector of a circle yani waa maxay qayb kamid ah circle over radius-kiisu uu yahay 5 cm uu yahay subtendis baa leeyahay waxa lagu taagay oo xagaldaas laga jeexay yani waa maxay radius-ku intaas uu ahaa xagalna waxana la siiyay 3/10 by baana la siiyay 3/10 by baana la siiyay at the center
وليبا سنتر كان لقى سمية حاجة كالكوليت واحد حساب حسابها ليرو كو length of arc يعني arc length كسو حسابي وكو انت ساي امتحان كله ويدينا يعني لابا هذا أنا واحد كوسي دري diameter سدع واحد سو حسابين هنا perimeter أفر واحد سو حسابين دونا circumference انت بواحد اللي يرهضه وينو كغش قينينا هذا من أنقرنا محاينو هيسنا محاسن هيسن waxaa haysanaa kow radiuskeena waan haysanaa waa 5 cm teetadeena waan haysanaa waxaan haysanaa 3/10 by baan haystaa wax kale ma haysto arc length baa la ii diray maadaama 3 waa rad maadaama xaga la isiin rad weeyaan hadda waxaan is weydiinayaa kow maxaa la ii diray aniga waxa la ii diray kow arc length baa la ii diray أجلس ما دام الراديان هيستوى حليه هي اس ويان الاستعمال مايو وحا إلى معنى تاي تيتا ولو دفتي ار كدينا وحا ويان وحليه هي ان حاجه اللي هو 3/10 باي ولو دفتي 5 كدينا لبدا اسكو دفو 15 باي ولو قيبيي 10 كدينا waxay ila siimi tahay 5 qaybi 3 by oo loo qaybiyo 2 yani waa maxay intaas waxaan soo helay aglankiisayga waan soo helay yani circle-kayga markuu sida uu yahay oo halkaas 5 cm laga jeexay halkaana 5 cm laga jeexay xagalna la isiiyay fiiri xagalna la isiiyay waxa weeyaan 3/10 by la isiiyay inta marka halkaas ilaa halkaas intaasi waxaan soo helay 3 by oo loo qaybiyay 2 baan soo helay kow taana waa soo xaliyay laba waxa la ii diray waxa la yiri waxa soo xisaabisaa diameter waxaan garanayaa diameter-kaygu inuu ila mid yahay radius-kayga oo lagu dhuftay 2r diameter-kaygu waxa uu ila mid yahay baan leeyahay 2 oo lagu dhuftay radius-kaygu waa imisa 5 oo la siimida 10 cm radius-ka ay diameter-kaygana waan la soo baxay waxa kale oo la weydiiyay oo la ii diray c tan waxa la yiraahdaa waa b tan waxa weeyaan waa a c waxa la ii diray perimeter ku waa maxay perimeter-ku waa maxay circle-kayga marka inta soo jadho yani fiir waa soo jardhay inta waxa la soo baxay 3/2 intana waa 5 intana waa 5 معناه waa maxay hadii lagu dhaho perimeter soo xisaabi waa maxay waa external distance-ga intaas oo dhan shanta oo lagu daray ka oo lagu daray ka hada shayba kan tusaale ahaan oo kale rectangle-ka ah hadii halka macnuhu siiyo 5 halkaana uu siiyo 3 uu dhaho perimeter soo xisaabi waxa leeyahay halkana waa 5 halkana waa 3 intaas oo dhan baa isku daray 3 oo lagu daray 5 oo lagu daray 3 oo lagu daray 5 macnaheedu 16 weeyaan kana sidoo kale waa inaan isku daraa waa easy weeyaan waxa leeyahay perimeter-kaygu waxa ii leegtay baan leeyahay he 5 oo radius-ka dhinacana line-kana lagu daray 5 taa kale lagu daray 3/2 oo lagu daray waa 10 oo lagu daray 3/2 oo la mid ah 10 3/2 يعني 3 haddana waxaan la soo baxnay oo aan la soo xisaabsanay wax weeyaan perimeter-ku waa maxay baan ku yiri waa external length-ka oo dhan oo la isku xisaabiyay weeyaan d waxa la diray d-na yani easy weeyaan ta kaliya aad laga rabay laakiin waxa rabaa maadaama inaad si xasuusato circumference baa la diray circumference-na waa garanaya waxay la macno tahay 2/r bay la macno tahay 2 waan haystaa by-na waan haystaa 2/r teeda ii sheeg يعني radius-kii waxa weeyaan waa 5 macnaheedu waa maxay waa 10 by iyadana waa maxay waa 10 by يعني waxa weeyaan waa 10 by يعني 10 by centimeter يعني intaana wax la yiraahdaa circumference-ga maxaan ka wadaa gabi ahaan ba circle-ka waxa weeyaan markii la isku dardaro intaas oo dhan marka gabi ahaan ba waxa la yiraahdaa waa wareega goobada waxa ay soo baxay 10 centimeter anigana haday fiiri intaas waxaan la soo baxay 3 oo loo qaybiyay 10 by ba ay soo baxay Soomaali
هذا أنت أصلا واحد بدلي دونا هدي أنت أمرك أنت أنا حاجة عصور راديسو كدبنا عصور راديسو ماينر أجلينكس كعصور راديسو كدبنا قيمها كو صباحا هي قيمها كان لوضع قيمة حدي عاد يسكت الروح كو صباحا يا تنباي وتجابين كذا هذا هو حويان فيرن كرا halkaas xagashaasi waa 3 by 3 oo loo qaybiyay 10 by oo raad ah raadka bedel qaabka loo bedelo waynu soo dhiganay inta bedesho kadibna waxa way xagashaasi qiimaheeda saxda ah soo xisaabi 5 waa haysataa radius ku isbedeli maayo waa 5 cm 5 cm hadaba asxaabta wax weeyaan hadii marka sida aad sameeyso aan ku sheegay inta aad wax la yiraahdaa xagasha qiimaheeda soo hesho halkaana waa 5 cm كدبنا minor يعني major aglinks ka soo hesho inta aad ku dadho waxa ku soo baxaya isku darka labadooda 10 by centimeter ba ku soo baxaya waa tijaabin kada isku natiija ku soo baxaysa hadaba asxaabi muhiimada ugu weyn waxa weeyaan hadii aglinks lagu diro in wax leeyahay hadii degree lagu siiyo aad ku xisaabiso l theta oo loo qaybiyay 360 times 2 by r aad xisaabto hadii radian lagu siiyana aad s hada waxa la macna tahay theta oo loo qaybiyay theta oo lagu dhuftay r hadaba example kale mar rabo inaan ka sameeyo adigu marka waxa sameeysaa xagasha 3 oo loo qaybiyay 10 by xagashaas oo radianka ah degree qaabka loogu bedelo waa soo dhigatay adiguna taa qaado bedel taa markii aad bedesho positionkeeda ku bedelo fiiri isku intaas miyaa ku soo baxaysa labaduba isku natiija ku soo baxaysa هذا أصحابي أنت سامك سوق بقبيننا حسدنا قيبتنا مانتا هذا بينتين نقول مدونا أصحابي تنمي لمدا فيديو سهيجا وأنا جوي سكدو وأنا ويد الله اسمه دافنه في أمان الله.